gaadhay saan garanayay anuga Kismaayo iyo Jubbaland bal halkaa ka wadaad horta mar walba magaalo ka soo laabto hotelkaygii baan ku noqonahay warweligay nimanka maaragtay nasabsan maarag hotelkaygii baan ku noqonayay kadibna waan ka sii baxayo waxaan isu diyaariyay safarkaygii Kismaayo sidii caadiga ay ahaydna waxaan soo dhajiyay hello Kismaayo berri waa idin la jooga hello Kismaayo berri waa idin la jooga hal qabsi gooni ku asho markaan ka soo degay niman dhalinyaro ah baa soo dhaweeyay runtii waan u mahad celinayaa qaybta VIP-da ee garoonka baa la igu soo dhaweeyay kadibna waxaan la ballansanaa oo markii aan xamar ka baxayay aan sii ballansaday wasiirka warfaafinta ee Jubbaland mudane Cabdifataax oo halkan ka salaamayo wasiirka wuxuu ii ballamiyay markaa koox iga soo qaada airportka oo hotel uu ii sii diyaariyay idajiya calow wasiirka waxaa igu soo xidhay oo iskaana baray walaalka Xasan Deeq Cabdullaahi oo adiguna istaqaanaan doobilaha walaalkiisii joogay Nairobi baa igu soo xidhay saaxiibo ilaahay yihiin oo malaha mar bay ka soo wada shaqayn jireen warbaahinta Soomaalida meel ay tahay war maaye marka wasiirku halkaas uu idajiyay markii meeshii la idajiyay uu igu soo booqday waliba markuu yimid sidii qof caadi ah aan magaalo isqoro fadhin iyo waxba kuma arago sidii qof caadi ah soo salaameen baan u salaamay mar dambe iga sii baxayo baa la igu yiri waa wasiirkii markii baan ka daba tagay ku yiri salaanta naga giiji shacabka doo salaantay marka isaguna inaan malaha garanayo sawirkiisii iyo moodahay anigana markaas ay igu horeysay halkii baa la idajiyay wuxuu ii sheegay wax allaale wixii aan u baahdo caawimaada inuu diyaar ila yahay xataa cameraman meelaha haddaan rabo inaan wax duuduubto xataa inuu ii diyaarinayo inaan dareemo maaragtay inaan magaaladeedii joogo buu ii muujiyay runtii wasiirka dee dhinacna waa nin reer Jubbaland dhinacna waa nin reer Hiiraan baan isla nahay anigu dhalashooyinkaygu way fara badan yihiin dib mala ku soo marka halkii baan joognay magaalada Kismaayo waxaan joogay muddo 3 maalin ah Kismaayo 3 maalin kuma filayn safarkayga 3 maalin kaliya joogtay kuma filayn safarkayga 3 maalin waliba 3 maalin oo dhamaanin baan markay soo tagay gaaray oo hawlo badan oo qabyayga ahaa Muqdisho dartood yaan u soo yar carrahay sababtayna ugu filayn 3 maalin waxa weeyaan Kismaayo waxa iga joogay ehel fara badan aniga ehelkayga reer Soomaaliya ugu badan Kismaayo afmadow bay degan yihiin marka dad badan oo qaraabadayda ah baa degan iyo jifadayda hoose marka magaalo u baahan bay ahayd inaan waqti fiican aan siiyo marka waan ka cudur daaranayaa waxaan u ballan qaadayse inaan u soo noqon doono haddii la yiraahdo marka ugu horeysan Soomaaliya ku noqdaan Nairobi markaan ka soo noqdo haddii la yiraahdo qorshaha igu jirta inaan waqti fiican aan ku soo qaato waxaan tagay xeebta Liido ee magaalada Kismaayo Liido Muqdisho iyo Liido Kismaayo kala jira waa magaalo runtii aad u qurux badan oo bad iyo webiba leh aadna way u dhisantay muddadii ay Jubbaland jirtay aad baa maaragtay isku tashi shacab baa lagu sameeyay iyo mid dawladeedba marka aad bay u dhisantay oo soo kabantay dee magaalo caasimadda saddexaad ee Soomaaliya aan bariyaynin weeye haddayna talabaad ku qabsanin marka laamiyada ku yaala magaalada laga dhisay waan fajacay runtii iyo qaabkay yihiin sawirka maanan ka haysanin marka hadda qudheeda waxaan malaynayaa ilaa 6 laami mise 7 laami oo xariga laga jari doonaa jira mar dhow oo la dhameystiray oo xidhnaa oo dhamaystirkii uun u dhinaa
The worst freaking state to live in right now is Minnesota, and nobody's talking about it. oo wasaaradda howlaha guud ay waday. Waxaan ku soo arkay magaalada Kismaayo arrin aan ku soo arkay Hargeysa oo ah xagga amniga. Magaalo aad u amni badan oo wasiiradu ay keligood iska socdaan, oo iska maqaaxyaha gaarigooda iska wataan oo iska socdaan oo kolba meel isaga tallaabayaan oo haba yaraatee. Waxaan maqli jiray uun magaalada afarta fay baa laga fadhiyaa oo kontarooladeeda la fadhiyaa oo maan maqli jiray. Laakiin waa run oo magaalada hareeraheeda waa la joogaa 40 kilomitir iyo 50 kilomitir iyo waxay u jiraan war ma hayo. laakiin haddana magaaladu say tahay iyo amnigeedu waxaan aad ula yaabay wey. Wasiirka qorsheynta Cabdiraxmaan in la yiraahdo baan isagana aad u wada soconay oo maaragtay aan magaalada isla wareegi jiray. Waxaana lagu casuumay meeshii caanka ahayd ee Goobweyn weli qumba saam u qabsatay. Ya bahalku dee waaba isbaray diyo caadi ah. qumba waan maqli jiray. hadda ka hor maad cabsoma ma hadda igu horeysa waa isbaray diyo caadi ah. aad buu weliba caafimaad badan yahay. Marka anu laba xabaan ka tuuray. Arina waana loogu qalay. Waanu mahad celinayaa xafiiska beeraha Jubbaland. Baynax in la yiraahdo oo aan malaynayo agaasimaha inuu yahay xafiiska iyo agaasimo waaxeed mid ku yahay ma kala cadeyn karo. Marka ninkaasaan casuumay oo aad ugu mahad celinayo aniga iyo dhalinyaro kale oo qurba joog ay ku jiraan. Marka meeshii Goobweyn ahayd baan tagnay. Meel aad u qurux badan runtii aan caadi ahayn weeyaan. qaabka nidaamka dawliga iyo askarta iyo sidii u macaamilaan iyo kala dambeynta iyo runtii aad baan uga soo fajacay. waxaan kaloo aad uga yaabay intii aan Kismaayo joogay baashan qabyaaladda la yiraahdo waa la maareeyay halka haye dadku waa wada walaalo. Kismaayo gudaheeda 10 qof oo kala qabiil oo wada walaalo oo wada kaftamayso oo isku wada qalbi saafi aad arkaysaa. waxaad sheegaysa baan ka sheekeynin oo waliba markuu ku baranayo reer hebel baan ahay buu ku dhigi kana ka kale. laakiin way isku calulsan yihiin oo dhibaato ma jirto. Mar waxaan aad u yaabay anagoo badda fadhinaan dhalinyaro fara badan oo aanan shuqul isku lahayn oo taageerayaasha ka mid ah yani aan is wada barano. haye laba nin oo isku xigaa waxay noqdeen laba nin oo midna asalkiisa ka soo jeedo Salaxaad midna asalkiisu ka soo jeedo Raaso. Masaan la kaftamaan ku yiri idinka maxaa iskiin arag fadhiisii idinka maxaa iskiin ag dhigay baan ku yiri waan la kaftamay ma ogtahay. meeshan ma aha bay dhaheen deegaanka Soomaalida. meeshan deegaanka Soomaalida ma aha bay dhaheen waxaa ka jira nidaam kaleeto dad si wada aaminsan oo wada walaala oo maaragtay ilaa Soomaalida nin walba asalkiisu meel buu ku aroori qabiilka la magaca ma sheegaynay. mid asalkiisu wuxuu noqonay Hiiraan mid asalkiisu wuxuu noqonay Qabri Dahare mid asalkiisu wuxuu noqonay Aadan Yabaal mid meesha waa la wada joogaa magaalada maartay deegaanada Jubbaland yacalo inaad taqaano mooyaane qabaa'ilka ugu faraha badan ee Soomaalida meesha ka soo jeedaan way waa meel public ah oo dadkeedu kala duwan yihiin. marka waxaan aad ula yaabay intaas oo qabiil oo wada jooga sida loo maareeyo loo caadi haddana u wada yihiin xasaasiyad iyo waxa ma jirto oo la iska kaftami oo wixii loo waxay nin walba haddana meeshu ka soo jeeday uu ku sheegi oo ku dhiyaan asal ahaantayda halkaas aan ahay ama deegaan ahaantayda halkaas aan ka soo jeedaa. laakiin dee dadka halkan meelahan kale ka soo kala jeeda ma aha dadkaasi waa dadkii Jubbaland ma garatay. laakiin waxaan ka wadaa qabaa'ilkii oo kala duwan baa haddana waxaad moodaa hal qabiil waa la maareeyo xumaan baan ka jirin gudaha arrimaha ayuu ku mashquul wax dhibo ma ku hisaaban jirin ba waa sida la rabay inaad la socotiyo in kale mooyaanena waxaa jirtay arrin qisaas oo hadda ka hor meesha ka dhacday baa jirtay oo 9 nin oo isku reer ah loo dilay hal nin oo ay dileen. ma maqashay sheekada? maamulka Jubbaland arrintaasi wuu asiibay baan isleeyahay. 9 nin dee hal nin baa laga yaabaa inuu dhib ka geystay laakiin way isdhaarsadeen. 9 nin inaga ahaayeen asal ahaan ma garatay. ninka la dilayna inagu ahaa asal ahaan
marka waxaa la yidhi war ninkii ninkan dilay sheega way sheegi waayeen la iskuma safaado meel la isku safaado ma sababta keenaysa inaan waxba la dilin waxba loo dhawaanin waa taas weeyaan tiirkaa la geenayaa qofkii edeb darre la yimaado haddii arrintaa qabyaalad lagu tirtirahay arrin fiican bay ahayd ku soco dadka markaan la sheekaystay waa arrin ay ku qanceen weeyaan kulley wax walboo la sameeyo dad mucaaradaa jira qofkii waxaa laga yaabaa dembigiisa- dadkii sagaalkan in laga dilay inayna ku qancin baa laga yaabaa laakiin arrintaas waxa ay waddo u furtay baa la yidhi in cid ku xadgudbi karta aysan jirin aysan jirin iyo cid ka laandheeraysan in la xakameeyo oo maamulku dadka xakameeyo oo dhanka wanaagga loo jeeyo waa waxay shaqadu hayaan ilaahay baa mas-uul uga dhigayba waa loo baahan yahay marka haddiiba arrintaasi lagu tirtirahayo qabyaaladda waa arrin aada u wanaagsan waa saas in iyagana dan waxaa ugu jirta inaana meesha qabyaaladay ka waxaynana keliya inuu maamulku wax hogaamiyo marka waan ku bogaadinaynaa in ummaddu sinaan ku wada noolaato iyo walaalo Jubbaland waa saas weeye ku soco midda labaad dee inagu dhinac kama rarnin si cadaaladaynu mar walba u sheekaynaa calow dad mucaarad ah way joogaan meesha laakiin mucaarad professional ah oo dee fikirkooda iyo waxooda un aaminsan laakiin qaabka inagu aan su caacayni iyo aan ahayn yaa jira waxaan maaragtay wasaaradaha iyo nidaamka dawliga ah aad buu u dhisan yahay dad waxaad moodaa isku tashaday dhinac walbaba inay joogaan baad moodaa markii dambe waxaan codsaday inaan la kulmo madaxweynaha waxyaabaha mucjisada ah ee meelaha kaleeta aana kusoo arag meesha kusoo arkay waxaa ka mid ah madaxweynuhu in lala kulmo say sahal u tahay cid walbaa la kulmi karta oo nin cid walba albaabkiisu u furan yihiin intay kugu qaadatay maxay ku qaadatay dee saacaday ku qaadatay haye marka keligay ma aha madaxweynaha waxaad leedahay marka albaabka madaxweynaha cid walba oo u baahan in la kulantaan wax kala hadasho way furan tahay way furan tahay islaanta yaanyada gadaysa hadday maaragtay dacwo qabto halay ballamiyay dhihi madaxweynaha ha marka waa loo ballaminaya waa loo ballaminaya waa arrin gooni sideedaba inta badan ninka mas-uulka ah mid baan rabaa in madaxda soomaalida inay fahmaan ninka mas-uulka ah dadka xoog hayntiisa ah iyo baratekoolkiisa ee ku xeeran waxay sababi karaan in isaga la naco iyo in isaga la jeclaado labadaba waa runtaas ma fahmayaan dadku moogta waa runaha dadka ninkan ku xeeran madaxweyne axmed madoobe waa dad u furfuran dadka oo si sahla loola xidhiiri kara wey haddaan message u diro waa laisoo jawaabi qolyaha kale waxaa laga yaabaa inay 3 usbuuc kugu qaadato ama 2 bilood okay dee laga yaabo inaysan horta qof walbo protocol ama security ama ku dhow madaxweynaha qofka uu la shaqeynayo kaliya ma nacsiin karo qofka shaqaalaha ah qofka madaxda uu la shaqeynayo wuxuu ka arko inta badan bulshada kula dhaqmaa haddii qof uu soo daayo la yidhaahdo maxaad u soo daysay maxaad igu keentay naftigiisu dhib bay ku keeni kartaayoo berri kuma dhiiran karo maya laakiin dee amuu madaxweynuhu isagu yidhaahdaa war dadka sii daayo oo isagay keena ku xidhan tahay kulley isagay ku xidhan tahay oo qofku waa la soo weydiiyaa anuu hadda markii aan codsaday inaan la kulmi karo fariintii waa la qaaday naga warsug baa laygu yidhi Haye. kadibna waa laysoo sheegay weliba markaan kulanka koobaad la yeeshay waxaan damcay inaan soo noqdo oo waqtigaa nagu yaraa martib fara badan oo ka imanaysay muqdisho haa waa kii shirkii shirkii ka dhacay qoladii samata bixinta lagu qabanayay meesha sax marka aad buu mashquul u ahaa marka way arkay wuxuu yidhi maaragtay dee hotel soo ma deganid hotelkaaga iska dego waxaad u baahatana maaragtay waa lagu qabane waanu is arki doonaa laakiin marka tii iyadoo halkii taagan tahay baan damcay inaan iska soo tago airportka laga soo celiyo waxaa la yidhi sooniyo waa maxay maxaa kugu dhacay fudeedka intan la eg waa maxay ya okay ma adigoo aan u sheegin oon odhanin maadaama ila anoo ballansanay maca salaama dhihin baan iskaga soo tegay yaad soo tagtay ha marka waa lagu celiyay caadiyana waxay ahayd dee inaan bulshada qaybaheeda kala duwan wixii dee aan la kulkulmi kariyo la kulkulmo oo dhallinyarada aan la kulmo oo hawlihii oo dhan marka anigu seeflabood baan iska ahay mogta haye garoonka anoo taagan way yaabeen marka oo ninku maxaa ku dhacay bay dheheen haye marka dib baa laygu yeedhay
madaxweynuhu wuxuu yidhi ma wax dhibaataa jirta ها waxaa la carartay هاي marka waxaan ku yidhi hawlo badan baa madaxweyne qabyayga ahaa oo inaan idiin soo noqdo baan damcay هاي bas waayo waan ku fasaxaynaa wuxuu yidhi intaad hawlahaaga soo qabsato nagu soo noqo khayr allah ku siiyaan ku yidhi saasaan kaga soo tegey aad ulama hada sheekaysan madaxweynaha maadaama mashquul ah aad ulama sheekaysanin oo caadiyan in intaan halkaa joogo oo dee hawlaha la galo oo shirku dhammaado markaa kadib aan anagu waqti isku helno oon kaftano bay ahayd hadda aad ulama kaftamin oo waxaan keliya ku idhi dee waxoogaa cabsi baa igu yar jirtee anna waan iska kaftan badanahay ma iska hadli karaa baan ku idhi هاي marka wuxuu yidhi war hadda markaad iga baxdo halkaa microphone qaado ay soo cayb yidhi haddaa rabto cid wax ku dhahaysa ma jirta buu igu yidhi wax ka badan oo badan dee anigu nin iska sheeka badan baan ahay waxyaaba fara badan baan jeclaan lahaa inaan kala sheekaysto وارونه waayo de waa hogaamiyaha ugu waqtiga dheer waxaan u malaynayaa dadka hadda soomaalida hogaamiya marka inaan la sheekaysto oon waxyaaba badan kala sheekaysto oon danaha soomaalida kala sheekaysto oo fikraduhu aaminsan yahay iyo waxyaaba badan aan kala soo sheekaysto baan jeclaa laakiin arrintaa waqti badan maanan u helin inaanse ku noqdo baa qorshe ii ah haddii ilaah yidhaahdo oon dee waqti la soo qaato isaga iyo madax badan oo soomaaliyeedba marka sidii baan kaga soo tegey muqdishadeydii baan ku soo noqday ada halkaa ku watee kolkaad noqoto ha anaa kuu sheegaya anaa la soo shaqaystoo la kulmay dhowr jeer hay horta waa talented axmed madaxweynuhu waa talented hadda maqlaysa inuu kuleeyay markaad halka baxdo horta ay soo cay labaa fariintii aan kuu sheegay aan ku wadi gaadsii ha maadan u sheegin laakiin hadda kuu sheegay markaas sax anugu aniga gobollada soo wada maray markii ugu horreysay bayn ahayd dhowr jeer waan kulanay waxay dabeecadiisa waagii aad muwaadinka ahaydba de weligay muwaadin baan ahay hay meel aan u muwaadin la-aan ka hayo mee jirtay hay meesha tagaba Ay. muwaadin baan ka si fiican axmed laba arrimood ood ugu tegey mid saddexaadse markaynu kaftanno ha la isugu iman maayo hay waa midda koowaade axmed wuxuu talented ku yahay ma aha madaxweyne keliya horta waa biisaani waa bulsho kala duwan buu la soo dhaqmay intaasoo waxba soo maamulayay qofka ugu necab ama ugu necab yahay dhammaantii soo istaagaan kaasoo qoslayaa ka soo bixi waa comedian sida kale maanta dhow kugu duqudayni maanta adigoo qoslahayo oo labadaa ku caddaadayna xalabaad soo bixi qof ka soo baxay oo xanaaqsan asagoo ka soo baxay ma jiraan markuu tago horta waa talented middaa kow si fiican marka la yidhaahdo xagga soo dhaweynta iyo sooriyada waa rag yaqaan uu sooriyeyna uu kusoo dhaweyn oo dadku waa isugu mid xagga sooriyada iyo soo dhaweynta dadku bas maaha soo dhaweynta oo inta lagu salaamo oo lagu qoslo bas ha ha axmed labada dhinac buu kaa soo dhaweyn Si fiican. kula kaftami wuu ku sooriyeyni Qalbigu wuu kuu ku furi. dejini qalbigu kuu furi kula kaftami calooshaada wax ku jiro dhan buu ogaani wuu xaadhi adoo faraxsan oo qoslaya oo wax kaleba ku mashquulsanayn baad iska soo bixi laakiin nimankan waxba kelaynin baan ku sheegaya siyaasadda isugu imaanina kursiga isku qabsanin kursigaas ku qabsana hay awgaa baa la gubi haddaad daba doonayso Hay. kursigaas ku qabsanina ma garatay marka ciday kursi isku hayaan anugu waa mid mise labo marka dhanka siyaasad annagu siyaasad kuma jirno ha annagu siyaasadda kuma jirno hadda kursi uma socono si fiican waxaynu nahay uun boodkaastar aynu nahay laakiin qofku wuxuu ku wanaagsan yahay ku xiyay baan sheegayna si fiican dadka ay hayaan lababa waa mid dee inuu intay safartaan oo la sheekaysto wixiisa siiyo iyo inuu yidhahdo magaalada iga soo gelin labadoo xor buu yahay Si fiican. awooddeeda inuu leeyahay si fiican ninkaa xoog badan xoolana haysta de markuu doonana wuu xanaaqi karaa marka axmed markaad u tagto arrimahaaga iska Gaarka. hadalka cidi kugu qabsan mayso inta dhalinyarta ku haraysan ay joogana aad bay u aaminsan yihiin oo Aad bay- daacad bay u yihiin sidii aan anigu anoo xil hayadii uun aan samayn lahaa ha uun weeye nin walba de wuu rabaa ninkay kursi dheeraysan kare xiniyo kororsan kare ee wixiisa haysan kara dee si allaalihi suu ku haysan karo de waa iska Mee markaa- afrika oo dhan baa saasa markaan la kulmahayee u horreysay yaa midaan ilmaadeernahay saan kuu sheegay qaraabadu meeshu way ku badan tahay Adiya. yaan bal ila tali bal ninkii odayga ahaa baan u socdaa haye wuxuu igu yidhi ninkani waa 100 nin buu igu yidhi oo isku jira haye 100 nin
oo isku jira maxaa ka wada abaan ku yidhi boqol nin annagu maanaga konton nin abaan ku yidhi waa ku seeniyo intaan tixtix kiciyey haye wax macquula noo sheeg baan ku yidhi haye mee ninkan wuxuu igu yidhi waa nin bad ah dad sheekhta sheekh waa ku noqon waad ku wareeri haye ayaruun arrimahaaga kala hadal buu igu yidhi laakiin anigu waqti baanan u helin mooyaane anigu waxaan doonayay wax kasta oo qalbigayga ka guuxaya inaad tidhaahdo inaan kala sheekaysto dee waxna qaarkood waaban kala sheekaystay oo kolley waa private waxyaabaha qaarkood aad iyo aad isaga markaan la kulmahayey ra-iisul wasaare xamse markaan la kulmayey arrimo badan oo private Waa yaan ka wada hadalnay waa sax laakiin dee sheekooyin aan isku gudbin baa jira oo qof walba iyo ta idinka dhexaysa Waa ay run, idinka waa run. idin maya gaar taas idin goonida tahay taa goonida ku Ma qodqodi garan. mayno laakiin waxaan rabay Jubbaland markaan tago waxyaabo fara badan maadaama ninkan khibrad badan uu u lahaa Soomaalida iyo la dhaqankeeda intaasoo madaxana ay soo wada shaqeeyeen inaan waqti isku qaadano weliba gurigiisa aan tago oo anigu dadka ka haybaysta mihi dadka waxaan ahay dadka wax walba inay kala sheekaystaan raba jecel sax isaguna dee dadka ka haybaysta ma aha oo waa ninkii qalbi dhagax oo tigraaga u xidhan xabsiga ku booqanahay ee lahaa ninkaasaan u tegay oo inaad arkay sax soo garan marka waxaan rabay inaan ilaa adayga intaan ka koobiyeeyo waxyaabo badan kala soo sheekaysto maya dhib male waad noqon Laakiin doontaa waan noqon doonaa insha Allah. markaad noqoto waad la kulmi doontaa Si fiican. waxaan rajeynaa inaad si fiican usoo sheekaystaan insha allah ku soco markaad madaxweynihii la kulantay kadib Jubbaland waxaan arkaya adigoo taagan wadadii jilib aadaysay ها waxaa usoo booqan weyday jilib iyo hoos والله horta jilib waa magaalo Soomaaliyeed cali dadku say ka dhigayaan ma jilib waa magaalo Soomaaliyeed dad Soomaaliyeed baana jooga waaran waa la sheegaa inay ajnabina joogaan laakiin dad Soomaaliyeed baa jooga oo ka taliya waa gar marka anigu maadaama aan comedian ahay ama in dadka u sheekeeya aan ahay waxaan ka waday inaan xasuusiyo horta magaalada Kismaayo waxay magaalooyin kale kaga duwan tahay baan kuu sheegaya wadooyinku magacyo leeyihiin sida Sweden iyo Norway oo kale haye wadada 15 May ama magacyo bilo taariikhdii wadanka lagu soo magacyo kale leeyihiin iyo maaragtay taariikhi iyo waxba lagu kala magacaabo oo birba intay saa u qotonto iyo wadada magaceedii sheegaysa oo ku qoran yahay boorsadii boorarka caadiga boorarka caadiga oo kale dhowr meelood saas oo dholka Soomaalida aan intooda badan ku arag shan Allah ka dhigay yaan ku soo arkay maasha Allah marka aniga oo intaan ka imid goob weyn Kismaayo soo galahaya oo agmarahaya meel abtigay janaale uu geerash iyo warshad iyo wax ku lahaan jiray oo laygu leeyahay waa halkaa meeshii abtiga yaan boodhka arkay boodhka marka waxaa ku qoran wadooyinkii kala aadahayay Muqdisho iyo Jilib iyo Jamaame iyo mid walba inta kiiloomitir ay u jirto marka waxaan ku niyo boodhkan soo jiidashu leeyahay ii joojiya dhalinyaradii baan ka codsaday waa la ii joojiyey sawir baan ku galay waxaan ku soo qoray marka xageen aadaa kolkaa un baanu moodnaa annaguna safartaa socota Soomaaliya ma safar ma ahayna waa iska comedy buu ahaa ma wadna khiyaantay marka dadka intiisa badan boqolkiiba 99 Jilib aad bay dhaheen oo kaligiiba ma kaligaa ma dadku Jilib sababtay aad u leeyihiin ma garanaysaa Jilib war badan lagama hayo meel jeerahan aynu tagnay ma niyaha wadada waxaa hadda hor ku safray oo dhulka soo duubay oo daawaday YouTube ka daawaday ninka la yiraahdo Gedisaan oo sii maray waa wada dhul aad u qurux badan weey oo jiq ah oo waxaysan baa leeyahay oo barwaaqaysan aad wadadaas halkaas aan ku arkay marka waxaan salaa saaxiibka hadduu tago uu kaaga soo warrami doonaa anigu haddii aan maaragtay maadaama qof shacab ah oo iska maaragtay dhulka Soomaalida iska wareega ahay dee wariye ma yihi haddaan laakiin wariye ahaan lahaa waan tegi lahaa meel walba warbixinaan ka soo diyaarin lahaa Soomaali garan sideedabana markaad bulshada aad waxyaabaha ay daneeyaan aad u soo gudbinaysid siyaasadda iyo waxyaabaha caadifada leh iyo waxyaabaha maaragtay dadku ay ka xanaaqaan iyo waa laga durkaa run wey marka waxaa laga yaabaa inay hadda jiraan shakhsiyaad Soomaaliyeed oo meel kasta tegi kara oo ka soo warrami kara macal jiribta laftirkeeda waa run way jiraan wariyaal waxaa jira caalami ah oo meel walba taga oo ka soo warrama way horey u tageen oo marka hore dadka meesha ka taliya intay heshiis la galaan ka soo warbixintaas xataa way ka qaalisan tahay warbixinada kale oo warbixinada maalin walba soo baxa ma aha waayahay waad mahadsan tahay waan u mahad celinaynaa reer Jubbaland waxaan leenahay horumarkaad gaadheen Allah idiin siyaasho maayarka magaaladana waxaan kula dardaarmaynaa Jubbaland madaxweynuhu Jubbaland dhan baa
iyo wasiiradiisu jubbaland oo dhan bay iyaa faran inay hormariyaan laakiin maayarku magaalada waxaanu kula dardaarmaynaa inuu magaalada hormariyo oo dhaqaalaha soo galahaya magaalada lagu hormariyo dhismaheedii iyo jidadkeedii iyo caafimaadkeedii waxeedii hadduu la yidhahdo madaxweynahana waan salaamayna iyo tiimkiisa waxaan leenahay reer jubbaland ciidan iyo shacaba nabadgelyadu waa idin muhiim waa inoo wada muhiim nabadgelyada hala sugo insha allahu hadduu la yidhahdo gaariga waxaan rajaynaynaa laga soo raaca mustaqbalka kismaayo in xamar laga soo casheeyo haddana dib loo soo hoydo sidii berisamaadka ahaan jirtay waayahay halka aan ku xidho haddaba barnaamijkaas horaan xidho ha xidhin adeer haye reer jubbaland guud ahaan waan u mahad celinayaa waay gaar ahaana madaxweynaha in isagoo aad u mashquulsan uu 2 jeer iqaabilay sax aad baan ugu mahad celinayaa waxaa jirta diyaarad u kala dhoofta Kismaayo iyo Dhoble haye oo iyaduna hadda duulimaadyo samaysa haye arrintaasina waa arrin fiican sax waxaa la ii sheegay iyadana horumar inuu ka jiro wadadan aada afmadow oo ilaa Dhoble si aadi doonta sax fursado maanan u helin waxaas oo dhan صح laakiin markaan insha Allah taala soo noqdo barnaamijyo ka hadlaya deegaamadaas yaan samayn doonaa insha Allah taala aniga oo cameraman wata marka reer Kismaayo hayga raalli ahaadaan maadaama iyagoon raalliga ahayn aan ka soo baxsaday